Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta qiimaha qadarinta naga mudan, waa anigoo ah Damxa. Halkaad naga daawanaysaan waa Damxa Media. Sida aad ciwaan korba ku soo aragteen, maanta waxaan ka hadli rabnaa ama aan wax ka sheegi rabnaa guritaanka webiga Shabeellaha Hoose. Haddii ay tahay markii kugu horeysay ee aad channelkeena soo booqato, fadlan subscribe noo saar. Waxay inoo tahay dhiirigelin. Wixii fikirkaaga ama ra'yigaaga ku aadan commentiga noogu reeb markaad video-ga dhammaysato, iyo wixii video kaaga soo baxaba commentiga noogu reeb, like-na inoo saar channelka. Aynu ku bilaabno webiga guritaankiisa iyo xilliyada inta badan uu guro. Sidaan wada ognahayba, webiga wuxuu guraa inta u dhaxayso 6 bil, 5 bil iyo inta meelahaas u dhadhow. Hase ahaatee, inta lagu guda jiro sanadkani 2021 sida rajeynayo bilowgiisa inay ahayd mar uu fatahaad soo sameeyay oo saameyn ama raadad uu ku reebay bulshada ku dhaqan degmada Afgooye. Balse maanta waxa ay ka duwan tahay sidii hore ama sidii shalay. Haddii shalay laga cabanayay in webiga Shabeellaha Hoose uu raadad ku sameeyay ama looga cabanayay fatahaadiisa iyo saameynta iyo dadka barakacitaan ay ka dhacday meesha, oo dadkii ay ku noolaan waayeen, oo guryahooda biyo ugu soo galeen, sidoo kale goobtooda shaqana ay biyo ugu soo galeen, xitaa buundada naftirkeeda lagu gudbi lahaa. Inta buundada marka laga reebo ma ahane, horteeda ay gadaasheedaba ay biyo wada ahaayeen oo meel la mara aysan jirin. Haddase maanta sidaasi ma aha. Webiga aslanba waxa biyo ku soo haray waa biyo yar oo xitaa aan awoodin inay dhaqaaqaan. Waa biyo meeshooda iska fadhiya, dhaqaaq iyo socodba aan sameyn karin, sababtoo ah ma haystaan awood ay ku dhaqaaqaan. Webiga intiisa badan wuxuu leeyahay ilaa 3 kalar ama 3 midab. Ugu horeyn, marka webiga uu soo buuxsamo, hadeer waa u gursan yahay sidaad u jeedaanba. Marka uu soo buuxsamo oo biyaha ay qarka u soo saarmaan, wuxuu ku imaanayaa kalarka ama midabka calowga ah ama midabka loo yaqaano midab. Haddii aadan calow u aqaanin, calow waxaa la yiraahdaa midabka kafayga ah ama sida shaah cadeyska oo kale ah, oo aad u shabaho dhoobada marka biyo ay gaaraan oo kale, qaabka ay sameysmayaan ama shabaha ay sameysmayaan oo kale. Midabkaasi noocaas ah ayay sameysmaan marka ugu horeysa ee webiga uu soo burqamo. Midabka xiga, marka webiga burqashada ay ka dhamaato oo xoogaa cayilnaantii hore uusan lahaanin oo xoogaa gursiimo yar ay soo gasho, wuxuu yeelanaa haddana midab sidii cagaar oo biyo ah. Ugu dambeyn, marka uu webiga gurayo ama uu biyaha wax yar ay ku soo haraan, sida hadeerba aad u jeedaanba, biyahaasi noocaas waxaa loo yaqaanaa biyo midabkaasi cagaarka ah ayay sameysmaan, ama waxay u muuqdaan sidii biyo wasakh ah ama meel wasakh ah lagu soo daadshay. Dadka ku dhaqan Afgooye waxay isticmaalaan si ay webigaasi ugu gudbi lahaayeen 2 wado, ama 2daas wado oo kala ah inay ku gudbaan ama ay ka gudbaan buundadaasi dusheeda, ama ay isticmaalaan sida hadeer idin muuqato doontaas aad u jeedaan. Subaxii sidaas ayay u shaqeynaysaa. Waa xilliga aan isleeyahay inta ugu badan ay shaqeyso. Intaasi doon aad u jeedaan waxay rakaab ka soo qaadayaan masaafadaas yar u jeedaan ay u dhaxayso. Hadda webiga zaid ayuu u gursan yahay, masaafo sidaas u badan ma jeexi karto. Masaafadaas yar aad iyo aad ku yar ayay qofkaas ka soo qaadaysaa, haddana qaybtaani kale ayay keenaysaa. Qaybtaas ayay ka soo qaadaysaa, haddana qaybtaani kale ayay keenaysaa. Imise lacag ayaa u malaynaysaa inuu qofkan ku qaadanayo?
asigoo doontaasi ku shaqeynayo ilaa maalintii oo dhan. Qofka halkaas laga soo qaaday oo haddana halkaan la keenayo meeqo lacag shilin Soomaali ah ayaa laga qaaday aad is leedahay? Wixii u malaynaysid ama fikirkaaga uu yahay commentiga noogu reeb. Videoga inaan sidaas ugu sii dheeraado ma rabi, halahaas inaan kusoo koobo ayaan rajeynayaa. Videogana meeshaas ayuu ku egyahay. في أمان الله. فأمان الله يا حلم تحلمت وعشت الدور. فأمان الله والأيام من يعلم بخافها. فأمان الله يا العهد الجديد بيته المعمور.